Soomaaliyeedna waxaan leeyahay fadhiga aan ka kacno oo qoladii Nairobi iyaguna hadii jeer waxyaabaha ka gurman jiray ha kaceen oo qolada Xamar ha kacdo oo qolada Puntland ha kacdo oo Somaliland ha kacdo oo Djibouti ha kacdo oo qurba joog ha kaco oo tijaartu ha kaceen waliba Dahabshiil iyo Axmed Jimcaale iyo nimanka xoolaha Ilaahay siiyay iyo kuwa kale la midka ah dabkii ka kacay caasimada dawlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga dabkaas oo dab xooga ahaa oo halka ummad badan ku naafeeyay waa qadar Ilaahay oo dhaliil iyo eed male islaamka hadaynu nahay waa in lagu qanco saasa leena faray khasaaraha laakiin ummadda soo gaadhay baa laga hadlayaa Soomaalidu waxay oran jirtay berigii hore maamaha Soomaalida laba waxay ku wanaagsan tahay baa socodka labana waxay ku wanaagsan tahay fadhiga labana waxay ku wanaagsan tahay hadalka labana waxay ku wanaagsan tahay aamuska waxa laba socodkay ku wacan tahay ragga iyo roobku socodkay ku wacan labana fadhigay ku wacan tahay dabka iyo dumarku fadhigay ku wacan gabadhu inay gurigeeda joogto ku asturaato haday inaan tahayna gurigooda hadii la qabana gurigeeda dabkuna in yaro aad manaafacasto wax ku karsataaba ku wacan haduu se kaco ummadda waa naafaynaya waa baabiinaya labana waxa la hadalkay ku wanaagsan tahay odayga reerka u weyn iyo sheekhu inay hadlaan bay ku wacan labana aamuska ku wacan baa la yiro dameerka iyo damiinka labadaasna aamuska ku wacan baa la waa meel arag imka qaar saxaafadaha Soomaaliyeed ka aamusiya wuxuu ku hadlay marka aan u soo noqday dabka Hargeysa hadaynu nahay waa heen bayna soo maray oo waynu garanaynaa wuxuu yahay ummadda aynu walaalaan nahay reer Jigjiga ee ganacsigoodii iyo suuqoodii iyo sayladoodiba ay xalayta gubatay Ilaahay waxaan uga baryayaa caawil khayr qaba inuu halka ugu bedelo waxa kalaan fariin u dirayaa guud ahaanba Soomaalida tijaarta qurba joogta dawladaha in laga qayb qaato dib u dhiska iyo dadka in wax lagu celiyo dhaqaalahooda in laga qayb qaato waahan markii dabka ka kacay dadkii ugu soo horeeyay soo gurmaday bay ahaayeen Hargeysina ama Somaliland abaalkii waa celisay xalay bay guureeyeen maayarkii iyo kooxii dabdamiska iyo cidii kale raacdayba wax la isku leeyahay marka waxyaabaha soo kala yimaadaan annaguna inaan ku hadallo waa waajibna saaran marka guud ahaan hadaynu Soomaalinahay marba meesha waxa soo kale ka dhacaan waa inaynu u gurmanaa oo nin af haya iyo nin adin haya iyo nin aduun haya intaba aynu isugu geynaa sidaas maanta hadalkaygu yahay Ilaahayna waxaan uga baryayaa caawil khayr qaba inuu ummadda ka siiyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay fadhiga aan ka kacno oo qoladii Nairobi iyaguna hadii jeer waxyaabaha ka gurman jiray ha kaceen oo qolada Xamar ha kacdo oo qolada Puntland ha kacdo oo Somaliland ha kacdo oo Djibouti ha kacdo oo qurba joog ha kaco oo tijaartu ha kaceen waliba Dahabshiil iyo Axmed Jimcaale iyo nimanka xoolaha Ilaahay siiyay iyo kuwa kale la midka ah ha kaceen oo halka ka geysteen gacan weyn ka geysteen idinkuna saxaafad ahaan waxaan idin oran lahaa imikana idinka mahadnaqaya idinka faafin karo kii waaheen meel walba ka riday kana meel walba ka rida xilkaas way idin saaran yahay